aan joogay ijaarka yar ee markay naga dambeeyay inoo muuqdo Soomaaliya kaasaan joog dabeeto diyaaradu markay soo dhaafeen bay dabeeto ayay tii dambe wax waan ku soo kacay dabeetana waan ku soo dhaqaaq riistii ay dibadda caruurta iyo haweeneyduna bartanay joogeen ardaygan dabadiisa oo deetana halkaasay ku riday dabeeto labadii bahal midna halkaasay ku riday midna caruurtan agtooda iyo dumarka haweeneydii caruurta dushooda ku riday ardayga dushiisa dabeetana wayna dhaafeen waxay markay dabeetay saa u riday bay dabeetana markii horena bahashu dhulkay socotay markii dambena hawaday gashay waxay markii riday hawaday gashay dabeetana waxaanu dareenay qofac iyo markiiba iyo duri waxaad moodo habeebaho intan laabta iyo intan cunahaba waxba naga wada xilmay caruurtii iyo anaga dhamaantayaba wali sidiiba ay wali habeebtii iyo duriga waxa duri moodo ayaa wali ku xidhan oo ku qofacaya markaa warku saas u dabeetay walaal ku dhayo dabeetana markii ayna dhaaftay ay halka hadana laba kale ku riday oo halka qoorta yare banaan weeyana galolka yaragtiisa soo agmarteen bay saasay dabeetay baxalu nagu dhaafeen anaga marka saasay dabeetay nagu dhaafeen laakiin dhibaato ma yareen waxba nooma reebin ilaahun baa na bixiyay baashaas marka sidii baashi wax rusheenaysa intay dhulka mareysay markay waxay tuurtay hadana hawaday qabatay marka ilaahun baa deebixiyo qumacyo waaweyn baanu meesha ka gor qadiyarada caynkii eeg bahay laba tuutala bay haayno afar sano meeshan marti oo xamar iyo meel ay tagaan mooyee Jabuuti ba fadhiistaan baa lagu yiri marka labada tuutaale ayay haay ninka hadaan sidaa gacanta la gaar bahal wareegayu saa ugu fadhiyayo oday qafilan oo wax ku xidhan ayuu haayo xaggan galbeed bay daaqadu ayay ka furaydo daaqadan galbeed baan ka socday ma garanaysa marka toos baan dee warkaay oo saas u wareegaysan kula saas u soo weegay hoos wala saas wax wareegayu ayuu ku fadhiyay wadee gacanta la gaaray walaal xanuunkii markii aanu wada qaadnay ayaan iyo reerkii wada qaaday dhammaan iyo macaanigu ayaan wali la wada jeefnaa sidee waan la il daranahay marka dee dhibaato aadoo adag baan qabsatay ilaahay un baan xaq ilaahay un baan ka baxsanoona bixiyay qofcii wali sidii baan u wada jeefnaa sidii buu noo haya gurigaan ku sugnaa bartayada waxaan joogay halka yar guriga ayaan joogay ubadka yar yar bay la joogay saddex hablood ee iminka hoos jooga ayaa kulkii ila joogo ila taagnaa tan sidaas oo kale makaan dhisinta ugu haystay ayaan ugu haystay deedna wuxuu bartaa aan taaganay intaadi makiinankaas ii jira in leeg ayuu iigu dhacay wuxuu way saseen caruurtii way shaqaaq xagaasaan uga yacni waanu wada sasnay caruurtii aan ugu isqabsanay halka xagaha iga qabsadeen saddexdii u badahaaba waanu sasnay dhanka galbeed baan uga waxaan uga yacni bari guriga qaac baa ku xidhay qaaci marka uu ku xidhay ka bacdi wayna dhaafeen bahalihii markayna dhaafeen qoorta hore ariyaa daaqaya ariyii bartankoodii way ku dhufatay way kala dideen qaasiga halkaana ka sii kiciso boorkii baan arkayna ka bacdi saasayna ku dhaafeen bahalihii ka bacdi anagu qofac iyo hargab iyo dadkii noo yimi wada qofac kaynta gabigeeda inay taayir lagu gubay baad moodaysaa qarmuunkii iyo wixii habeenkii ka baxayay iyo la maalintii dambaba wax mas'uuliyadii degmadu way noo timid xaggan magaalada waa laga yimid dhowr baabuur badan baa timid ilaa 7 gaari ayaa maalin saddexaad inoo yimid kolkaas ay noogu yimaadeen meesha uu marmareen wixii ay ka qabanayeen badii ay ka hadlayeen ka hadleen bay ilata caadi ay mareen waxay afartii galabnimo de korkayagu bay mareen laba diyaaroodna ahantii dambaana tuurtay xashiishkan waxaan xashiish baa arkeenay laakiin dadku waxay dhaheen waa alaab sanaysan waxa ku ridaan aasa kadib dad baa saaka soo saaro anna waxa ku talagalayaan gubo waaniga leetar coast imsa diyaarood baa hayay laba hayay ta dambaana soo tuurtay alaabsan anu intaas ma arkeenay marka imsida mareen afartii baa marka waxaan diyaarada ciidan baa hayay ciidan laba diyaarado laba tuutaa bay hayay ka joog hoose ku socday miya xaqna soo maxay ma meel sare ka socday u dhawaay caadi baa qofka diyaaradda wada loo arkay cid dawladda ay diitay ma jirto si fiican baa ninka darawalka arkay وجهك سوى جرسها. ما نقدر والله. ما كي وديارته يدولسي. عادي واركي قف. عادي بنوركي نك. كان أنت قف صار هذا ما صار. نين نبرة نوركي. نك الباب كنت خاصة كاس كل ما نركي. الباب كم وحين تطبع الهواء مرايد لكن أنا وفرنا الباب. غالبا توتوحنا مياه. توتوحنا. سفي عم بسروال كيسة شاكا أد ما سياكينو أنت هسروح ويجير بدنا سروال يكبت قبل سفي عم نركي. قالوا مكان عدان بها ديارة توتي أخطر يو محرر هذا حريق waxa weeyaan anigu waxaan dadka halka deganaa shacabka ah magacayga waxa la jaa Maxamuud Bareelada
waxaan soo maray diyaarado aanan garanayn baan soo maray diyaaradaasi dadka waxba iskaga rideen dad shicib waxba galabsan buuhaa waxay ahaayeen ma naqaano kolka waxyaabaha aynkaas kulantay waa dhibaato fara badan weeyaan xukuumadda lafteeda waxba anaga kumaanaan arag oo wax ka qabada maanu arag warbixino hore jiray way jireen waxyaalo hore ay meel ka geystay way jirtay waxaanu ka cabanaynaa inaan waxyaabahaas kale aan dib loogu soo noqonin oo wax laga qabto oo wax laga hadlo oo caalamka loo sheego dadka shicibkii caruurtii baa sastay imika xaafad halkan oo dhow guriga ay wax ku agdhuftay weeye ciyaalkii oo kabalka jooga ayay wax ku agdhufteen way firxadeen dadkii uu sas buu wada qaaday diyaaradu aqalada guud waxay marayeen halkan aqalada dushooda marayeen inta malaa mitir bay u jireen dhulka guuxoodii khalkhal fara badan baa ka dhacay waxaanu codsanaa dadka aan u bandhigaynaa in wax laga qabto laga hadlo oo ummadda loo sheego markaa diyaaradu diyaarada caynkee ah way ahayd usmad caynkee bay lahayd diyaaradu waxaa diyaarada helicoptera oo tuutale oo kolal badanna meelahan soo maray laba diyaaradood baa heno wada socday markaa mid baa wax ridridaysay annaga waa halkan anigu halkan joogno annaga waxay nagu soo tuureen bileedha caaga way nagu soo tuureen indhihiina waa ku aragtee ma filaya kolal badanoo horena wayna soo mareen xoolihii iyo dadkiiba way saseen imaka dadkii wuxuu ka wada irdhoobay diyaarad markuu arko meel ka guuxaysa in caruur ay xoolo ka yaacaan bay maraysaa xaaladdu ay maraysaa waxaanu ka cabanaynaa diyaaradahaasi sidii ay bulshada looga nabadgeli lahaa ee xukuumadduna ay uga hadli lahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmada cidna maxamed ka yimaadeen annagu degmada annagu dad shicib baanu nahay awooddeedu waa inaanu degmada wargaadhsiinaa warkii degmada waanu gaadhsiinay annaga hawsheed intaasi ku koobanta wixii halkaa ka sarreeya anagu ma gaadhi karno gurma degdeg hadday noqoto waxaa lagu jiraa waqtiga abaaraha cid idinku xulan oo degmadii hadday noqoto iyo hadday noqoto caasimaddiiba oo mar kasta idinka soo warheshaa ma jirtaa kolley adigu degmada dee soo gaargaar mooye laakiin xagga xukuumaddu aad bay u gaabisaa aad waxqabadka xukuumaddu ilaa xad buu gaabiyaa waxa weye xilli baa lagu jiraa jiilaala hawl way iska fara badan yihiin kolkaa dee waxaanu kolleyba in maxaad farinaad diraysaa kolley adigu waxba fariina waxaa imika ugu badan ee ka hadlaya waa taa diyaaradaha wixii warbixina ee laga gudbin karo in caalamka dee loo sheego wax laga qabto sida ay yihiin looga hadlo ayaa meesha taalla bismillaahi raxmaani raxiim waxaan idinka soo warramayaa xaaladdii ka dhacday maalintii dhaweyto diyaaradihii rusheeyey dadka deegaanka ee masaakiinta ah ayaan idinka warramayaa dadkaasi waa dad runtii masaakiina oo jooga meel abaara oo ilaahay mooye aadamima maqnayn weydinkii maqlaayey warbixintooda reerkaa dhan ee faamiliga ah 2 halaad iyo maxay sheegeen iyo 10 riyaad waxaan idiin sheegayaa dhibaatada dee xagga rabbi kaga dhacdayna way haleeshay waxay ku kasbadeenna garan mayno adduun weynaha waxaan ugu sheegaynaa horta iyo cid kasta oo ka naxasa qayladhaantaa inay qaadaan ooy maqlaan ooy gaadhsiiyaan oo nimanka diyaaradaha ee soo kacay meeshay ka soo kaceen in laga war doono oo la soo hubiyo oo ujeeddada dadkan ay u duqeeyeen waa in la helaa oo la ogaadaa ilaahay unbaa bixiye talo looma dhigan dadkani waa dad kala laayey ee ilaahay noolaystay weeyaan marka aad baan uga xunnahay in la gaadhsiiyo adduunka cidday ka tirsanaayeen iyo saldhigay ka soo kaceen iyo waxay waxaa u sameeyeen in la ogaado weeye xoolihii way dideen intaa ay sheegeen inay haystaanna way diday carruurtii sas bay ku wada jiraan qofac iyo xanuun bay ka qaadeen dawo ma haystaan biyo ma haystaan caafimaad kale ma haystaan cid waxbarasho ma haystaan waa ummadda bannaankaa fadhfadhida weeye marka waxaan leeyahay cid kasta oo maqashay inay soo caawiso dadkaa oo dadkaa loo gurmado oo loo yimaado oo hadday tahay qurba joog iyo hadday tahay qaran joogba in loo soo gurmado oo deegaanka la yimaado oo dadkii ay ka tirsanaayeen dadkan amba cidda ka naxasa ay u yimaadaan oo xaaladooda ogaadaan aad baan ugu boorinayaa waxaa kaloon ku boorinayaa dadkan meelahan jooga ee
amba wadaadada sheeganaya amba cid kasta sheeganaya amba wuxuun sheeganaya inay ilaahay ka yaabaan oo dadkooda u naxaan inay dadkooda u naxaan oo u yimaadaan meelaan loo baahnaynba waa kuwa tage inay yimaadaan oo si tabliiqinimo ah loogu yimaado ayaan ku boorinayaa waxa kale oo aan runtii ku boorinayaa degmada inay dedejiso oo iyaga laftigooda dhaqdhaqaaqooda dedejiyaan oo u soo gurmadaan oo u yimaadaan oo reerkan wixii macaawinay la soo gaari karaan ay la soo gaadhaan ayaan aad ugu boorinayaa waxaan u sheegayaa aada runtii aan ku boorinayaa deegaamada kale markay waxaa wax ka yara dhacaan waa loo gurmadaa iyaguna way qayliyaan laakiin dadkani ma yaqaanaan qaylada iyo waxaa waa dad ilaahay aaminsan ilaahayna saasuu ku arsaaqaa waxaanu leenahay laakiin ilaahay baa la baryaa aadamin lama baryo laakiin dhibaataa ku dhacday ha loo tixgeliya dhibaatadaa ayaan aad ugu boorinayaa oo aan leeyahay qurba joogta iyo qaran joogtaba ha la caawiyo reerka iyo deegaankaba ha loo yimaado aad baan idinku soo dhowaynayaa waan ka xumahay in muddadaa laga maqnaado aad iyo aad baan uga xumahay midh yaroo kaloo aan raaciyo ka baxsan waxa weeyaan waddada 150 ee Hargeysa gudaheeda inanka maayarka sheegta waddada 150 ee Hargeysa ku wada taala midna waa ka banaynaya ka shaqeynaya macaan cagaftiisii keenay midna wuu bixinayaa isagii baa la dhista taana waxaan u sheegayaa dadweynaha canshuurta laga qaado og labadii waddo ee Hargeysa ku wada yaallay labada xaafadood midna la banaynayo oo loo geynayo cagafta midna la dhisanayo ee lagu amrayo in la dhisto taana waxaan u dhaafayaa dadka deegaanka ayaan u dhaafayaa macnahaasi wuxuu yahay ay u daawanayaan ay uga hadli waayeen isagaa soo geliyey miidiyaha isagaa israaciyey isagaa waxaa sheegaya xaafadna dhisaya oo banaynaya waddooyinkeedii xaafadna odhanaya xidha waddada oo dhista taasna waa taa intaana waan ku darayaa laakiin qasdiga aan meeshan u imi waxa weeye maanta inaanu u soo gurmanno dadka masaakiinta markaa waxaan leeyahay ha loo soo gurmado dadka ha loo yimaado cid kastoo ay ka naxasana ha u timaado annaguna diyaar baan u nahay waxa kaloo aan raacinayaa oo aan baaq u dirayaa kudladda meesha joogta waxay doontaba ha ahaato gabiilay markii ay u gurmarayeen ay dhibaatada ku dhacday waynu ogeysa ay ahaayeen dee gabiilay iyo deegaankana waa isku mid waa laba deegaan oo isku mid ah waxaan leeyahay sidii gabiila loogu gurmaday ha loogu soo gurmado deegaankanna ilaa xaq buu leeyo cashuur baa laga qaadaa isagaba waa deegaankii magaalada Hargeysa sabab uu ku mutaystay inay waayaan caruurtooda yaryare inay caafimaad waayaan oo dhakhtarkii waayaan oo waxay cunaan waayaan oo ay waxbarasho waayaan oo wixii bini aadam ku noolaan jiray ay waayaan ya dhibaatadu markay ku dhacdana cidi u ogaan weydo loo qariyo waliba aad baan uga xumahay marka kudladda waxaan leeyahay u soo gurmada waa dadka sheegataane ha loo yimaado dadka deegaankan u dhashay ay doortaan ay marka codka doonayaan u yimaadaan hadday xusbi tahay iyo hadday tahay kuwii laga doortayba waxaan leeyahay ha u yimaadaan oo dadkooda dhibaataysan bal horta ha soo eegaan ha isul taagaan bal waxba yeesiinine bal waxay ku nool yihiin ha ogaadaan horta aad baan taana ugu boorinayaa wassalaamu calaykum